Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada YouTube channelka daawanaysa waa Salim Media Official. Fadlan haddaad noogu cusub tahay subscribe noo saar, like dhe, share dhe, asxaabtaadan la wadaag. Mahadsanid. Videogeena maanta wuxuu quseeyaa waxaynu ka hadli doonaa 4 masjid ee ugu qadiimisan ee ku taala magaalada Muqdisho. Magaalada Muqdisho ahna caasimadda koowaad ee dalka Soomaaliya waxaa ku taala masjido qadiimi ah kuwaasoo lagu tilmaami karo masjidada ugu qadiimsan ee adduunka. Haddii aynu dulmar ku sameyno taariikhda masjidyadaas waxaa ka mid ah masjidka ugu qadiimisan uguna faca weyn ee magaalada Muqdisho waa masjidka Xamarweyne oo loo garan ogyahay masjidka jaamacadda, waxaana la isku raacsan yahay inuu yahay masjidka ugu faca weyn ee magaalada Muqdisho. Masjidka Xamarweyne oo loo garan ogyahay masjidka jaamacadda waxaana la dhisay 630 Hijriga. Masjidkaasna waxa uu leeyahay 81 tiir. Masjidka labaad ee ugu taariikhda weyn uguna faca weyn magaalada Muqdisho waa masjidka loo garan ogyahay masjidka Arbaca Rukun oo dadka badan ay u yaqaanaan Arbaca Rukun. Masjidkaas waxaa la dhisay bartamihii qarnigii 7 ee Hijriga. Arbaca Rukun waa masjid ka mid ah masjidada ugu qadiimisan magaalada Muqdisho. Masjidka saddexaad ee ugu faca weyn uguna qadiimisan magaalada Muqdisho waa masjidka Fakhrudiin, waxaana la dhisay 6700 Hijrigii. Masjidkan wuxuu ku caan baxay oo darbiyadiisa uu leeyahay kuna qoran Qur'aankii Kariimka oo si xirfadeysan loo qoray. Masjidka afraad ee ugu facda weyn ee magaalada Muqdisho waxa uu ahaa masjidka Axnaafa, waxaana la dhisay qarnigii 7 ee Hijriga. Kadib markii uu gumaysigu dalka qabsaday, masjidku wuuna dumiyay, waxa uuna ka dul dhisay baarkaasoo uu bixiyay Baar Safooy. Masjidku taariikhda leh waxa uu duugan yahay muddo qarniyaal ah, waxaan rajaynaynaa inuu mustaqbalka fog lasoo faagi doono. Tani waxay ahayd cadeymo ay Xamar u leedahay inay ka mid tahay caasimadaha ugu xadaarada weyn ee magaalada Muqdisho. Tabiyaha barnaamijka uu ahaa Salmaan Yaasiin Cusmaan Saliimka. Intaan barnaamijka ku kulmi doono waxaa idin tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo iyo amaano Allah.